السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام ميل كستو جوجتان iyo si kasta oo aad noo daawanaysaan. Dowladda isu tagga Imaaraadka Carabta ayaa waxa ay ka yaabsatay wadamada Islaamka kadib markii ay sheegtay hadal waqti xaadirkan dal Islaam ah aan laga filayn inuu ku dhawaaqo oo ku saabsan markaasi qadiyadda Israa'iil iyo Carabta. Dowladda Imaaraadka Carabta waxa ay sheegtay in ay qorsheynayso in ay sii wadaan xiriirkooda diblomaasiyadeed ee ay la leeyihiin Israa'iil inkasta oo ay caalamka ay ka cabanayaan dhibaatada sii kordhaysa ee dagaalka Gaza waxana ay rajeynayaan in ay saameyn dhexdhexaad ah ay ku yeeshaan ololaha Israa'iil iyadoo oo ilaalinaysa danaheeda gaarka ah sida ay sheegeen afar ilo oo xog ogaal u ah siyaasadda dowladda Imaaraadka Carabta. Xukuumadda Abu Dhabi waxa ay noqotay dal Carab ah kii ugu caansanaa ee xiriir diblomaasiyadeed la samaystay Israa'iil muddo 30 sanadood ah sida uu dhigayo heshiiskii Abraham ee Mareykanku garwadeenka uu ka ahaa sanadkii 2020 taas oo ugu walxaaraysay wadamo kale oo Carab ah in ay xiriirkooda ay la samaystaan Israa'iil iyagoo oo jebiyay xaaraantii ahayd in ay caadi ay ka dhigaan xiriirkooda iyadoo oo aanay jirin abuurista dowlad Falastiini ah. Heshiiska waxa sabab u ahaa qayb ahaan walaaca la wadaago ee ku saabsan khatarta Iiraan iyo sidoo kale dib u habeynta dhaqaale ee ballaaran ee siyaasadda arrimaha dibadda ee Abu Dhabi. Imaaraadka ayaa Iiraan u arka mid khatar ku ah ammaanka gobolka inkastoo sanadihii ugu dambeeyay ay qaaday tallaabooyin diblomaasiyadeed oo ay xiisadda ku dejinayso. Imaaraadku waxa ay sii wadaan martigelinta safiirka Israa'iil mana jirin rajo ah in la soo afjaro xiriirka diblomaasiyadeed kaasi oo ka dhigan mudnaanta istiraatiijiyadeed ee Abu Dhabi ee mustaqbalka fog sida ila wareedyadan ay sheegeen. Israa'iil iyo Imaaraadku waxa ay samaysteen xiriir dhow oo dhaqaale iyo mid amni laga soo bilaabo 3 sano ee caadinimada oo ay ku jirto iskaashiga difaaca. Israa'iil waxa ay siisay Imaaraadka nidaamka difaaca hawada kadib markii gantaalo iyo diyaarad aan duuliye lahayn ay ku soo qaadeen weerar Abu Dhabi horaantii 2022 dhaqdhaqaaqa Xuutiyiinta ee xulufada la ah Iiraan ee Yemen. Ganacsiga laba geesoodka ah ee labada wadan ayaa kor u dhaafay 60 bilyan tan iyo sanadkii 2020 marka loo eego xogta dowladda Israa'iil. Dalxiisayaasha Israa'iil waxa ay buux dhaafiyeen hoteelo, xeebo iyo xarumo laga dukaamaysto oo ku yaala Imaaraadka taasi oo ah awoodda saliidda ee OPEC iyo xarun ganacsi oo gobolka ah. Tirada dhimashada ee isa soo taraysa ee ka dhalatay duulaanka Israa'iil ee marinka Gaza oo lagu bilaabay argudasho weeraradii xuduudaha ee 7 Oktoobar ay kooxda Hamas ee maamusha deegaanka Gaza ay ku qaadeen Israa'iil ayaa cara ka dhalisay caasimadaha Carabta. Madaxweynaha dalka isu tagga Imaaraadka Carabta Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ayaa bishii hore waxa uu la hadlay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Saraakiisha Imaaraadka Carabta ayaa si cad u cambaareeyay falka Israa'iil waxayna ku celceliyeen in la joojiyo rabshadaha. Isagoo ka jawaabaya codsi faalla ah oo ku saabsan sheekadan, sarkaal Imaaraati ah ayaa waxa uu sheegay in Imaaraadka muhiimadda ugu dhow ay tahay sidii loo sugi lahaa xabad joojin iyo in la furo wadooyin bini'aadantinimo. Wadamada Khaliijka Carabta oo reer galbeedka ay ku jecel yihiin hantidooda shidaalka ayaa saameyn weyn ku leh arrimaha gobolka. waxa kale oo ay dowladda Imaaraadka ay u adeegtaa sidii saaxiibka ammaanka ee Mareykanka ay u qancin lahayd iyada oo martigelinaysa ciidamada Mareykanka. Sidoo kale Imaaraadka Carabta oo la hadashay Israa'iil waxa ay ka shaqeeyeen dhexdhexaadinta mowqifyada guud ee ay qaataan dowladaha Carabta si marka uu dagaalku u dhamaado ay suurtagal ay u noqoto in dib loogu soo laabto wada hadal ballaaran ayay yiraahdeen afar ilood oo codsaday inaan la aqoonsan sababo la xiriira xasaasiyadda arrinkan. Sarkaal sare oo reer Yurub ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in wadamada Carabta ay haatan garwaaqsadeen inaysan suurtagal ahayn in ay xiriir ay la dhistaan Israa'iil iyada oo aan laga hadlin arrinta Falastiin. Wasaaradda Amuuraha Dibadda ee Israa'iil waa ay diiday in ay ka hadasho sheekadan. Sheikh Mohammed ayaa kula kulmay Abu Dhabi Khamiistii la soo dhaafay
amiirka qatar sheekh tamiim bin xamaad al thani isaga oo kala hadlay baaqyada ku aadan xabad joojinta degdega ah ee bini'aadantinimo iyadoo qatar ay garwadeen ay ka tahay si loo sii daayo tiro kooban oo la haystayaal yuhuud ah si looga nasto dagaalka. imaaraadka carabta iyo qatar waxa ay ku adkaysanayaan in ay dhiirigeliyaan baahida loo qabo in la horumariyo dadaalada lagu dejinayo colaadaha iyo in la helo nabad cadaalad ah oo waarta oo dhammaystiran oo ka dhalata gobolka, ayuu sheekh maxamed uu ku yidhi baraha bulshada doodahooda kadib. inkasta oo ay xiriir dhaqaale iyo mid amniba ay la samaysatay Israa'iil 3 sano ee lasoo dhaafay, haddana Abu Dhabi wax yar oo guul ah kama gaarin in warkooda la maqlo oo Israa'iil ay weerarka 11,000 ay shacabka ay ku dishay Gaza ay ku joojinayso. sida ay sheegeen saraakiisha Falastiiniyiinta, ururka Xamaas ayaa dilay ku dhawaad 1,200 oo qof weerar kadis ah oo ay ku qaadeen Israa'iil, waxaana la qafaashay ilaa 240 qof sida ay sheegeen maamulka Israa'iil. iyada oo ismariwaa uu jiro, imaaraadka carabta ayaa si isa soo taraysa uga carooday saaxiibkooda ugu muhiimsan ee dhanka ammaanka ee Washington oo ay aaminsan yihiin in aanu cadaadis ku filayn uusan saarin joojinta dagaalka, ayay yidhaahdeen 40 ilo ee la soo xigtay. Anwar Gargash oo ah la taliyaha diblomaasiyadda ee madaxweynaha imaaraadka carabta ayaa waxa uu sheegay toddobaadkan in Washington ay uga baahan yihiin in ay si degdeg ah ay u soo afjarto colaadda oo ay bilowdo hannaan lagu xallinayo 10 sano oo dagaal Israa'iil iyo Falastiin ah, arrintan oo wax looga qabanayo qaxootiga xuduudaha iyo bariga Qudus. imaaraadka carabta ayaa si cad walaac uga muujiyay in dagaalku uu hadda halis ugu jiro horinta xiisadaha gobolka iyo mawjado cusub oo xagjirnimo ah oo ka dhaca bay yiraahdeen bariga dhexe. iyadoo ka hadlaysay Oktoobar 18-keedii golaha ammaanka ee qaramada midoobay, halkaasi oo imaaraadku uu ku fadhiyo kursi wareeg ah, Danjire Lana Nusayba waxa ay sheegtay in Abu Dhabi ay ka raadisay heshiiskii Abraham ee Israa'iil iyo Mareykanka si loo gaarsiiyo barwaaqo iyo ammaan bariga dhexda cusub, iyada oo loo marayo iskaashi iyo nabad ku wada noolaanshaha. dhibaatada aan loo meeldayin ee lagu soo booqday dadka Gaza ee lagu raadinayay khatarta amniga ee Israa'iil ayaa baabi'inaysa rajadaasi, ayay tiri Danjire Lana. waad ku mahadsantihiin akhyaaray sida wanaagsan ee mar walba aad noola socotaan. Bulqaas Media ayaad naga daawanaysaan. adiga i daawanaya, sidee baad u aragtaa hadalkan ka soo yeeray dowladda isutaga imaaraadka carabta ee wadamada islaamka ka yaabiyay? fadlan dhinaca commenteska noogu soo qor ra'yigaaga. haddii aad ku cusub tahay page-ka Bulqaas Media, ha naga ilaawin in aad like iyo follow aadna soo tiraahdo. haddii se aad tahay macmiil soo noqday, sidoo kale ha ilaawin in muuqaalkan aad share garayso oo asxaab badan aad la wadaagto si iyagana asxaabtooda kale ay ula wadaagaan, halkaasina warar dheeraad ah ay uga helaan. wixii tale iyo tusaale ah marnaba ha ka labalabaynina inaad noogu soo qortaan dhinacyada commenteska iyo messageska. rabbiga ha idinla jiro, aad baan idin salaamayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.